السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داود يال كسر دوادة برنامج كني سومالي مانتا وإن كداون إنسان مقال أرجع سومالي سات حرون في سماجلة أصلا. برنامج كان أنت بدن وحن كسر قادنا وحيابها دنتا أوه ومدة يدك سوماليات با. برنامج كان مانتا وحن أبنها لصعنا سوماليا تن بربركي كوي سجاشن ككذب وحيابها فرد بدن وحا أبور ماي اسمري واه. maanta waxaan ku soo qaadan doonaa Jubbaland maamulka loo dhisay ma saxsan tahay barnaamijkan waxa igala qayb qaadan doona haduu Ilaahay idmo Jeylaani Sheekh Muxdiin oo ah xubin ka tirsan xisbiga shaqaalaha ee dalka Norway iyo Cabdi Cali Cigaal oo ah odayaasha reer Jubbaland ee ku nool dalka Norway magaalada Oslo ugu horeyn Jeylaani waxaan la soconaa aan ognahay in maamul laga sameeyay Jubbaland taasoo dadka Soomaalida intooda badan ay raacsaneen siiba dawladda ka jirta dalka Soomaaliya waxyaabaha sababay ee dadka qaar u diidan yihiin maamulka laga askumay Jubbaland maxaad leedahay بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وما بعد marka ugu horeysa waxaan u mahad celinayaa maamulka iyo shaqaalaha telefishinka Soomaalisaad oo nasiyay fursadan qaaliga ah aan isku dhaafsanayno aaraada kala duwan marka labaad hadii aan u soo laabtay su'aashaada Soomaalidu sideedaba wax isku mar raacdo 100% Soomaalida kale maana caalamka oo dhan 100% wax isku raac ma jiraan laakiin waxa la fiiriyaa sida hadda aan Yurubtaan joogno iyo Mareykanka dunida horooda u martay inta badan waxa ay taageeraan ama ay jecel yihiin ama ay u arkaan sax inay tahay ayay sax u qaataan sidaas aawadeed annagu marka Soomaaliya nahay waxaad moodaa dimuqraadiyadda aan wali si fiican uma gaarin marka hadee inaan aaraa kala duwan aan la nimaado dunida hor u martaaba la timiday annagana la yaab ma noqonayso inaan aaraa kala duwan la nimaado marka sidaas ayaan imaanaysa aaraa kala duwan ma aha maamul la sameeyo waxba kama jiraan aaraa ma aha waa wax diidmo weey sama si fiican horta haddii aan u soo jeesto xaqiiqda doodeena mar walba waxa loo baahay horta marka la doodayo in lagu saleeyo maadaama dad muslimiin aan nahay waxa laga doodayo waa diidmo iyo ogolaasho mar haddii diidmo ogolaasho ay tahay waxa aad diidayso waa inaad ku shalayso marka ugu horeysa shariicada islaamka maxay ka qabtaa marka labaad sharciga federaalka ee Soomaaliya muxuu ka qabaa waxaan aad diidayso ama ogolaanayso sidaas daraadeed waxaan qabaa marka inaan cugsano labada shariicada islaamku maxay ka qabtaa maamulkaas Jubbaland laga sameeyo dastuurka federaalka muxuu ka qabaa marka koobaad haddii aan ku hormaro shariicada islaamka ayada quraan ha jira oo ku dhahaya oo leh aduu Allah wa aduu rasuul wa awla minkum sidaas aawadeed anigu waxaan u arkaa dawladaha sadda laga sameeyay ee isbarbariyaaca ee Kismaayo laga sameeyay inaysan ahayn sharci anu u cuskanaya aayadan quraanka ah oo la dhinac maray in la raaco ul amriga in la raaco ul amrigu waa dawladda federaalka ah mid labaad waxaan u cuskanayaa inay sharci darro tahay halkan waxaan ku hayaa nuqdo dastuurka federaalka ah haddii rabto akhrinay waxa waaye cutubka shanaad ee dastuurka federaalka ah qodobka 49aad oo qeexaya sida loo maareynayo dawlad goboleedyada Soomaaliya waa kan hadaba waa qodobka 49aad waaye cutubka shanaad tirada iyo xuduudaha dawladda xubinta ka ah dawladda federaalka cusub waxaa go'aaminaya golaha shacabka baarlamaanka federaalka golaha shacabka baarlamaanka federaalka inta aanu goyn tirada iyo xuduudaha dawladda xubinta ka noqonaya dawladda federaalka wuxuu magacaabayaa guddi heer qaran ah oo daraasad ka sameeya warbixin ay la socdaan talooyinna u bandhiga golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka magacaabidda guddiga lagu xusay farqada labaad waa halkan qodobka labaad ee kore waa inuu ka horeeyo sharci golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka uu ansixiyo oo qeexaya
xilalka iyo awoodaha guddiga b halbeegyada uu cuskanayo samaynta dawladaha xubinta ka ah dawladda federaalka iyo shuruudaha qayb dalka mid ka mid ihi uu ku mutaysan karo inay ka mid noqoto dawladaha xubinta ka ah dawladda federaalka sidaas aawadeed laakiin sharciga iyo dastuurka dalka Soomaaliya ma diidano in la sameeyo maamul goboleed Soomaaliya maamul goboleed la sameeyo ma diidano laakiin waxa ka horeeya maamul goboleedka inta aan la sameeyo sida ku cad qodobkan in la helo oo la sameeyo guddi qeexa xuduudaha iyo goboladu inta ay naqanayaan iyo xuduudaha ay yeelanayaan Jelani cigaal ma dawladda Soomaaliya kumeel gaaranku way dhamatay miyaa hor taagan in maamul laga sameeyo Jubbaland bismillaahir rahmaanir rahiim horta dhamaantiin waa idin salaamay Soomaali saad iyo shaqaalaheed iyo qolada namarti gelisay oo qolada waa bari dhamaantiin waa idin salaamay salaamta anigu ma aaminsani wax kala oo cudurdaar ah inay haystaan Jubbaland waxaan aaminsanahay Soomaaliya waxaa haysto nin qori qaatay khasnad ku xiray amaanka u furay xabad dhunta u dhigay asaga isku soo laabay oo firgada qabtay xabadda soo dilaysaa waxaan ugu dan leeyahay dawladdii ay dhisatay oo ka baxday ku meel gaarkay oo caalamka aqoonsi ka heshay ayaa ku noqotay waddankeedii inay ku noqoto xabad ayada ayaana hor taagan dhisitaanka maamul goboleedka Jubbaland waana sharci dhisitaankiisa ayadaana sharciga garmari haysa daliil iskama hadlay aniga qofku ulul amarka ah in la raaco waa xaq laakiin meesha waxa ku jira ulul amarka hadduu khaldan yahay oo 4 ilaa 9 saac ay ka imaanayaan wax aan ku jirin xadka example Soomaaliya Jubbaland waxa la yiraahdaa jabhad baa joogto okay ciidamada jooga meesha la yiraahdo beledweyne waa ciidamada deegaan baydhabo ciidamada jooga waa ciidamada deegaan meesha la yiraahdo galgaduud ciidamada jooga waa ciidamada deegaan weli ma laha ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo 18 gobol oo Soomaaliya laga keenay oo mushakal ah Soomaali weli kama dhisna ciidanka Kismaayo joogan waxa la yiraahdaa ciidan qabiil waa kuwan waa deegaan kuwan wixii ka soo uray aniga ma fahmin dawladdan sameyn hayso okay maamul goboleed oo federaal ayaa jiray federaalki bar wuu ka jiraa Soomaaliya barna waa la hortaagay qodobka uu saaxiibkay sheegay qodobka shanaad ee qodobka 49aad farqadiisa shanaad waxa ka dambeeya qodobka 49aad farqadiisa lixaad waxay qiraysaa xuduud wixii ka badan 2 gobol wixii ka bilowdo 2 gobol ee ka badan waa israaci karaan xuduudadana waa xuduudadii hore oo gobolada marka anaga yaan taagnaani ninkii aayadii quraanka ninkii maanta la wacdina leeyahay geel saka male oo bari markii la dhigay meesha laga bilaabi lahaa geel saka male sabab uu yeelan way noocaas oo bari laga bilaabi lahaa oo ilaa intaas uu gaaray saka male aanan sugin oo ila sheekh bila ay sheegay geel saka male qodobka shanaad waxa ka dambeeyay qodobka lixaad oo qiraay in la dhiso dhibaatada taagan ee cigaal ugu weyn oo hadda la isku mari la yahay waxa weeye in maamulka Jubbaland iyo dawladdii ay iswaafaqsanayn kala horjeedaan maxaad hadaatiin odayaasha reer Jubbaland dawladda ugu tagi weyseen aad oran weyseen innaga hadda maamul goboleed baan sameeysanay welcome soo dhawaada nagala qayb qaata okay dawladdu waan u yeernay gogol baan u dhignay waxaan 850 qof oo fadhida meesha la yiraahdaa jaamacadda Kismaayo ayaa waxa la yiraahdaa dawladda waan adeecsanahay hanoo timaada hanana hagta wixii qalad oo leenahay ayda farta naga saarto waxaan ayda hata fatirta aydina ha hogaamiso markaan ka soo qaado waftigii tagay oo ugu weynaa awoodii ugu weyneed wuxuu ahaa ra'iisul wasaarihii Kismaayo tagay wuxuuna diiday inuu u taga odayaashii dhaqanka oo dawladda soo dhistay oo kaararkii dastuurkii ay ku ansixiyeen wadata oo fadhida meesha ayuu yiraahdaa uma tagay ee idinka u tagay u sheega u tag oo waxa tiraahdaa sidaas yeel ama kadib arintaas ma jirtaa in ra'iisul wasaaraha dalka intuu yimid la diiday ama uu diiday inuu la kulmo odayaashii deegaanka anigu arrinkaas xaqiiqatan hadaanan dambaabayn xogogaal uma ihi laakiin waxaan ognahay ra'iisul wasaaruhu waa tagay
waa la isafgaran waayey wafuud badanaa tagtay maxaa la isku afgaran waxaa la isku afgaran waayey dawlad goboleed marka la dhisaayo horta sideeda gobollada jubbooyinku ma aha Kismaayo ma waa gobollo badan dawlad goboleed marka la dhisaayo gedo iyo jubbada dhexe dawlad goboleed marka la dhisaayo marka kow horta waxay u baahan tahay in la soo maro nidaamka dastuuriga guddiga loo saaray ay qiimeeyaan oo baarlamanku uu go'aamiyo xuduudaha gobolladu ay yeelanayaan iyo sida ay isu raacayaan example hadda gobolaa jira Soomaaliya ku yaala laba gobol ah bidix iyo midig ka saaran dhinacna Itoobiya ka xigtaa dhinacna baday ka xigtaa wuxuu diiday gobolka bidix ka xigay iyo gobolka midig ka xigay labadaba inuu raaco wuxuu rabaa gobolkan ka xageeya ka shisheeya inuu raaco sidaas aawadeed waxaa meesha loo baahan yahay sharciguna uu qoraa in baarlamanku marka hore uu jaangooyo inta dawladood ee Soomaaliya ay yeelanaysa federaal xuduudaha iyo sida ay isu qaadanayaan oo aan ku dhisnayn qabiil iyo jarakaboodo kan mar rabe ka shisheeya waxaa jirta maamulka Jubbaland dhismiisi buuq iyo dhibaato badan iyo jahawareer badan baa laga kulmay si fiican waxaa la sameeyay maamul la yiraahdo galmudug waxaa la sameeyay maamul la yiraahdo xibin iyo xeeb wax ka wada hadlaayay wax buuq iyo dhibaato ka jeedinaya mayna arag dawladda maxay ugu wajahan tahay Jubbaland dawladdu waxay ugu wajahan tahay xibin iyo xeeb iyo galmudug waa wax ka horeeyay وانا كويس إلا إيا هذا واحد صح وقتها رئيس الوزراء ما تجي قلمه ما يسوق خلافين ما حي يسوق خلافين وحي يسوق خلافين أما راع بنلان أما كان قبل كله أو راع لكن أذنكو قلمه كليه أو إن يرو قال كأيو غيب سنة ما إذن كيله إنه إن تراهن دولة نماها نروح بونصبو سداس أودي دولة حاجة يكون تاجنت هاي شرع يقولنا وحوي هاي واحد شرع قال دين عمره هذا وطن كان أنجوجنا شرع يا كجرا عندما يستو شرع يا كجرا وحن رأسه وحن قص وحن تاجر سنة هاي دولة يا شرع كجرا هديك لما أنت أنا إذن حوجة ويقرأ على هذا موبايل كقاعد صار تلاقي يلي هذا لكن شرعي النظام كإلالين يسي شرعي النظام كهدان لإلالين وحا إيمانايا وكسو بحايا ماشاس وحبوب كلابتسي يان لقاقو هرمرين سيدا ما أنتك اسمايا كتاقر شن مدحوين يقول لها ضحي دات رير جبال لانا ويسو يمادين لكن قبل الله دي حرماه يا يميدي وحا يميدي إنكو أبانا تيمي قبل الله دانا الله يسادتكو دينا ما كرنو شباب جوغا يا كسو غيب قال الشركة قبل الله بدن وصل مثلا سيدي قدا إيو محاكو دادان كإيمان example haddaan soo qaadanoo kale kuwa yimid laftigooda oo 500 walaalkay uu sheegay ama 700 qaar kamidu waxay yiraahdeen sida wax u socdaan ma rabno way qaldanta way ka tageen qaar kamida waa kuwa doortay barreeyada waxaas marka waxa dhamaantood ay ku imaanayaan sharciga oo la dhinac maray madaxweynuhu waa qaldami kariya waa insaan gobolada isu yimid lagama imaan baa la yiri gedo maanta maxaa ka jira okay walaalkay waxa uu sheegay wax badan baan ka diidanay markaan ka soo qaado gobollo al-shabaab ay haysata oo laga imaanaa la yiraahdo degmooyin gobol ma deegaan example aan ka soo qaado aniga waxaan ka imid jubbada hoose khaas ahaan ayaantii la dooranayay dastuurka la sameynayay oo dawladda Sheekh Shariif kala guurka ahayd odayaashii dhaqanka ee jubbada hoose waxay haysatay al-shabaab jubbada hoose wayna ka yimaadeen ayadoo haysato ayay ka yimaadeen taas markii waxaan ku tusin karaa in meesha al-shabaab haysata ima haysata aanay dad u maqnin 850 qof oo odayaal dhaqameedadii Soomaaliya oo markii dastuurka ansixinaysay dhammaantood gobolada inta badan intaanan Puntland ahayn iyo xamar gudaheeda intaanan ahayn galgaduud inta kale waxay haysata al-shabaab kullin waa laga keen waa yimaadeen haddana waa sidoo kale oo qof ka maqan ma jiro tan kale dad kale barahiir aan dooran هذا كور واحد جرت لبضة يكون إن عرضه قصة دورت عبد القاسم مركو حمر إمادة لو بري وجوي نين اللي يراه إن درمان أفرق في سكوجي تربون والي دورتي يراه عدة صو دورت إن درمان سومالد إنه وده بريرة الواتي أكله وإن درمان أكله وحلا بوبوني وما أرك أنا مرك إنفلونزا جيلاني بريرة الكلية موسى مقعبنا وحيري كوافر وحكى الأول شيء يا وحكى الأول شيء هذا التلفون هاي هذا بيبي سادلها ولا بوبونا كل شيء بركض لنا الرناج جوجا أنا قرناي ننظر لين جو كسمة مدحوين كمان قن كرام مي عدة دورات وعمله أفر بقول إيه سجاشر إيه شنقو فاد دورات أحمد مدوبي ما كان كسر قاضي حسن الشيخ محمود برسلنت حسن الشيخ محمود ومدحوينين بقول إيه سجاشر قفاد دورات
490 qofna ay dooratay in carqalad la geliyo waa xaraan u arka aniga midda kale 800 qof oo Soomaali ah oo madax dhaqameedadii Soomaaliya ah oo mutacallimiintii Soomaaliya ah wax ka baxsan dastuurka inayna iskugu imaaneen nin kasta uu fahmi karaa waa qodob dastuurka mid ah waxa saddexeeyay waxa saddexeeyay dawladda horta maxay tahay dawladdu waa su'aal dadkaas ayay u dhaxaysaa waxay ka baxday u dhaxaantii dadka waxay faqooqday dadka jubbooyinka sabab waxa jirtay dawlad hore oo Sheekh Shariif tantii ka horeysay ka sii horeysay ma aaday ma jirin odayaal dhaqameed idaacadaha ka hadla oo iskugu يعني حنجبه مجرم دولته هذا وود أجنة واحد هير واحد كوب إسرائيل قدك وكل صعده وكل نقطة أي تاجن واحد سميسين ودولته هذا جو ما حد رقم هذا هالله وحوليه هديك إسرائيل واحد ما عنده يتصدح سوى ذاك الجو حمر بالحد رقم هذا كان وحي هذين تدببري دقات وأنا قد ما ديدين تدببري جوده هذا هداي دولته كجواب أرمها كسماء وما دقات لنا يجري ما رقم هذا كسماء حمر جوائره مدحوينها كجوابه wuxuu yiraahday 7 bilyan la gaarin wuxuu yiraahday arinta Kismaayo ma yeelin meeshii loo baahnaa ninka noocaas inuu xiro odayaal ogaa odayaal dhaqameedka waaya ee wax la arrimaha Kismaayo had iyo ninka la yiraahdo Ahmed waaya wax la yaan waxay uga hadlayaan waxa way laglanjisa dawladda ay keentay way waa laglanjisa ay dawladda ma dhici kartaa wax yiri kan ma dhici kartaa sababta ay uga hadlayaan in dad deegaanka reer Jubbaland oo cadaadis lagu hayay inay jirto maya because inay jirnaan ku sheegaya maalin hore waxa tagay Nairobi oo ka hadlay Maxamed Amiin aniga waan aqaanaa meel baan isku dhalanay aan isku wada dhalanay oo wada kornay bilowna wada cadaay jirnay Maxamed Amiin wuxuu la dhashay Suldaan Cabdi Cali Sokor ayuu la dhashay Suldaan Cabdi Cali Sokor gogashu fadhiya miisuu fadhiya wiilkii oo dhintay asaga Allah yarxamur raaximiin walaalkiisa fadhiyo oo bedelay Maxamed Amiin wuxuu leeyahay looma dham cid uu sugay umadam uu leeyahay waayo waxa intaas dheer korneelkii haysan jiray abaanduulaha gobolka Jubbada hoose haysan jiray oo Saalax Makoma la dhihi jiray ayaa ku jiray dadkii maaliyo toddoba geeyna Saalax Makoma walaalkiisa Maya Makoma ha fadhi warrimaganba waan aqaana aniga dadaal deeri doonteed nimanka iskale way guriga la yiraahdo nimanka iskale way walaalkiisa fadhi looma dhamuulay ma aniga hadda marka 10 milyan oo qof haday dhahan Xasan Sheekh Maxamed meesha joogo looma dham wax macquul noqon kara maahan nin walaalkiis u fadhi looma dhamo marka waa wax baadil ah u arka aniga jira sideeda looma dhamayo loo dhayo waxa ka horeeya war waxaan sharci ma yihiin horta yes sharci ma sharciga ma waafaqsan oo sharciga federaalka ma waafaqsan in la sameeyo maamul goboleed in maamul goboleed maya hadda in la sameeyo ilaa guddi looga saaro ee laga qeexo xuduudiga goboladu say isu raacayaan baarlamaanka federaalku oo ka qeexo ee uu ka go'aamiyo macal kuwa hadda dhisan oo hadda aad sheegaysa qaar kamida ayaa waxay noqonayaan iyo kuwa kale in la israacsiyo la isku qasbo ilaa sharcigaas la sameeyo in maamul goboleed la sameeyo sharci waxa jirta xubnaha isu yimid wayda minad xubnaha isu yimiday ee 700 ee walaalkay sheegayo sharci darre isu yimideen boobay isugu yimideen inay boob iyo sharci darre isugu yimideen waxaad ka garanaysaa maxaa ka dhacay markay madaxweyne ku dhawaaqeen marka uu leeyahay lama caburin dad maxaan ku iraa gobolka u dhashay xamaray joogan iyadoo la caburiyay waxaad ogtahay luga dheera kamid inta la soo garaaca soo diidiiran oo soo noqday Cabdiraxmaan Suldaan luga dheere airportka laga soo celiyay wadadii gobolka u dhashay oo rabay inay shirka ka qayb galaan waxa kamida maxaan ku iraa hadda bariir ilahan taga hogaamiye kooxeedka ee maxaan ku iraa ay khatarta aan maanta ugu jirno inay nagu soo noolaadaan hogaamiye kooxeedyadii laga taqalusay oo maanta mid kamid uu yimiday waa gobolka u dhashay ma imaan karina la yiri khatar wuxuu ku galay si taariikh waxa meesha ka socda waxay ahayn marka boob sharciga ma waafaqsanayn sharciga islaamkana ma waafaqsanayn sharciga federaalkana ma waafaqsanayn wixii ka soo baxana waa baadil waxa jirta dalka Soomaaliya gobol kasta iyo degmo kasta xuduud hore uu lahaa صح معناها دولتنا هذا جبتي الدستور كان وحنا ليه حدودها لا بدلها حدود عصب على سمينايا مية حدود waxay kan xuduud yadii horay maadaama ay jiraan iyagana lagu dhaqmaayo dadkii degmooyinkaas iyo gobolada deganaa haday yiraahdeen waan soo imaanaynaa dawladdu maxay ku diidi kartaa dawladdu ma diidayso laakiin waxa ka horeeya wax walba horta waa inay leedahay adigu hadaad rabto inaad aado maanta Turanheim inaad aado waa magaalo kamid ah Norway waa inaad jidad u marta leedahay ma qardaje xad ku tagaysa kuma tagi karto waa dhume dariiqi loo maraayay ee dastuurkii loogu talagalay in inta loo dejiyo loo maro ayaan weli la sameyn oo diyaar aan ahayn marka Puntland dib sidaas daraadeed Puntland waxay noqonaysaa ama gobollo kala la raacsiin doona ama inteeday naqa doontaa ama iyada qaab laga soo goyn doona sharciga hadda walaalkay uu sheegay maxaan ku raadaa labada gobol inta ka badan adiga ku weydiinaa Soomaaliya 19 gobol way 8 dawladood barmee qaada suuragal ma haddii la yiraahdo marka labaha gobol hadii la isu raaco ma 8 dawladood iyo bara noqonaynaa ma soconayso waxaan leeyahay anigu oo ku talinaya
reer Puntland aan kula reer baan kula Jubbaland aan kula tarinaya walaalkayna aan kula tarinaya hal laga warsugo dawladda federaalka ah baarlamaan waliba xataa asoo madaxweynuhu sheegay madaxweynuhu shaqo ku malay baarlamaanka way wax ku qoran halkaas oo shaqada ku leh baarlamaanka xibnay ku leeyihiin haday yihiin maxaan ku reer Jubbaland dadkii ay soo doorteen ay soo dirsadeen yay masuugine ha ka warsugeen wixii ay u keenaan ay u soo qeexaan u soo qoraanna ha qaateen waxaad ka dhawaajisay in dad cadaadis lagu hayo degan Jubbaland waa kuwe waa dadkii dad laga tira badan yahay iyo dad laga tira yar yahay intaba hadda midlaan luga dheere dad laga tira badan yahay ma diyaaradu raacay inuu meesha tago doorasho ka qayb galo damba waxa dhici karta wala soo karbay waxa dhici karta adeerkiis inuu fadhiyo meesha adeerkiis doo fadhiyo waa suldaan way macnaha cadaadiska ma shakhsiyada lagu hayaa shakhsiyad mise waxa lagu hayaa waxa jira anigu ma dhihi kara qabiil lagu hayaa laakiin dadkii meesha inay tagaan la rabo isaga laftigiisa luga dheer laftiisa qalad ku tagay leesh sharciga ma waafaqsan tagistiisa xataa sharciga ma waafaqsan kuwa meesha joogna sharciga ma waafaqsan kulligood ba sharci ma waafaqsan waxaan qabaa marka walaalkay baarlamaan bay doorteen madaxweyne shaqo ku male ra'iisul wasaare shaqo ku male golo wasiir shaqo ku male golaha baarlamaanka ayaa go'aan ka gaaraya qaabka xuduudeynta gobolada baarlamaanka ay doorteen oo xubnaha ku lahaayeen ha aamineen hana sugeen waxay u soo qaadaanna ha qaateen haddii kaloo la yiraahdo waxbaan boobaya iyo wasdhinacayna waxbaan dhacayna 10 ka madax hadda 5 baa la maraya berritana 10 adiga ay maaniga ku beeri karno haddii la yiraahdo maxaad u sugi laadihiin baarlamaankii aan dooranay ee dalka Soomaaliya okay waa su'aal meesha ku jirto horta marka ugu horeyso waxaan rabaa inuu xir dib uga hadla ninka la yiraahdo lugu dheer hadda ka hor u tagi meesha markuu tagay asaga ayaa idaacad ka hadlay waxa meesha lagu wadana waa wax saxan waana liisoo dhaweey si fiican baan liisoo dhaweey asaga yiraahdo idaacadana ka dhigaystaan oo maxaad u erisanaa hadii uu idin amaanay iisug kii idin amaanay ma erinaysid kii idin ma erinaysid iisug meesha dhigays okay asaga ka soo tagay naqodka dambe uu tagay uu sheegay aniga ma aaminsana hadduu tagay in dadkiisa joogay meesha hal lama aaminsan nin walaalkiis uu joogo ay asagana la diiday ani ma aaminsan kulli waa nin ay wax ka soo ureen asaga un baan soo noqday waxa taas magaalada qof kale ma tagi kara miyaa cid kasta tagi karto oo u fasaxan because inay tagi karto waxaad ku ogaataa maxamed aamin hadda marka doorashada dhacaysa suldaan doorashadu markay dhacaysay rag baa ku xiray airport okay aan kala qaadan hadalka waxaad ku ogaataa inuu nin walba tagi kara barihiiraal hadda baawur wata magaalada dhex marihaya maxamed aamin habeen VIO ka hadlay oo ka aytamay oo caynay Jubbaland kismaayin jooga magaalada dhex wareegaya okay tan baarlamaanka markaan u galo baarlamaanku leeyahay yiraahdo waa sax haddii baarlamaanka ay leeyihiin waxaan waa xaaraan 52 xubnood oo baarlamaani ahaa tagtay shirka ay tageen idaacad bay ka hadleen waa xalaal bay yiraahdeen maxay baarlamaanku u dhihi waayeen markaas xalaal ma ahan ayaga tagay isug tan kale dastuurku aniga kuma aan qorin waa federal aniga kuma aan qorin wixii laba gobol iyo ka sii bato hadda wuxuu yiri 8 dawladood ma qaadan kartaa dastuurka Jubbaland ida kuma ay qorin anigana kuma aan qorin laba gobol iyo wixii ka badan waxay noqon karaan maamul goboleed waa isku raaci karaan aniga kuma aan qorin dastuurka ayaga ku qoray baarlamaanka ku qoray asaga ansixiyay asagaan ku dhaqmahay madaxweynahan asaga lagu keenay baarlamaankan asaga lagu keenay tiyaana taagana waxa la yiri oo inta orgaga ka weyn ma dhici kartaa in waxa dhacday maamul goboleedo tiro badan baa dalka Soomaaliya ka jira maamul goboleedkan Jubbaland markii la sameeyay waxa taageeray oo daba taagnaa Puntland madaxweynaha markii la magacaabay ninkii ugu horeeyay u soo hambaliyay waa Faroole ma la dhihi karaa habbeeleed bay ku socotaa sheekada Jubbaland ka socota ee maaha mid Soomaaliyeed nay lama dhihi karo because in la dhihi karaan ku sheegi so Faroole waxa weeyaan federaal oo maamul goboleed ku dhisay damba ugu jirta wixii sharciga oo dastuurka in la fuliyo oo la meel mariyo damba ugu jirta gobol asaga oo kala ah galmudug iyo xubin iyo xibin musaabaqeen ku wada galmudug markii la dhisay Farool gacan buu si in la dhisay gacan buu ku si wuuna ku taageeray hadda waa wata hadalkayga galmudug iyo Farool yaa horreeyay Farool iyo galmudug hadda marka ma Puntland shiga Puntland okay galmudug isu galmudug for example fiir kaaga soo qaad ماشي إنه بعد اللي ما كوجر إيه تتفقوا قال مدوك إيو ماشي اللي يراهدو حبين إيه حب همبليو أما إيه صادر بانكوري جبلان لكن فرعوا همبليو صادري مركا موان لو أركي كرين إنه تهاي حبالات ماي وحنا لو أركينا كل شيء ماشي اللي يراهد جبلان وحكاهد لي أو تكوري أو ديدي برلمان كجيبوتي أنك هاد لي قدوميها برلمان كجيبوتي نعفر بناها فيريا
maxaa ka quseeya nin baarlamaan jabuuti jooga kismaayo puntland hadday ka hadashay xaq bay u leedahay waa soomaaliya wixii soomaaliya saxan oo sax lagu wadan way ka hadli kartaa wixii khalad aan waxay dhihi kartaa waa khalad way saxan tahay qabiil ma aha taas in hambaliyada ay soo jeedisay puntland ay tahay habeelad marka ugu horeysa waxaan rabaa inaan ku hormarsado hal shay anoo kaga jawaabaya taas walaalkay wuxuu yidhi xamar odayaala ka hadlay yes odayaashu xamar way ka hadlay degaan ahaan dadkoodu minority ha noqdeen ama majority ha noqdeen dadkooda meeshay degaan shirka kama qayb gelin ayagoo dhaleelsan sida wax u socdaan iyo sida sharciga loo dhinac marayo odayaashu wax kale ma dhihina waxay yidhaaheen waxa meesha ka socda sharciga ma waafaqsana waa oday xorriyatul qowlaa jira dimuqraadiyadaa jirta oday gurigiisa jooga oo oday qaabiileeda hadlay shalay miya mase maanta jubbaland ayaa ka hadlay puntland nin wasiiraha ka hadlay waa wasiir waay xasaana wasiiruu leeyahay wuxuu yidhi waa ku jihaadaynaa dawladda federaalka ah jihaadaanna ku gelaynaa in lagu jihaado oo lala dagaalamana way bannaan tahay maxay daliil u tahay marka taas su'aashaad hadda weydiinaysa ay daliil u tahay in jubbaland ay taageerto puntland waxay sal ku leedahay arrimo qabiilay sal ku leedahay waxaa caddayn u ah dad ka tegey meesha la yidhaaho puntland oo diyaarada looga qaaday ayaa la geeyey meesha oo ka qaybgelayay shirka iyo doorashooyinka ka qaybgelaya dad ka yimid waxaad ogsoon tahay dad ka yimiday NFD oo odayaala oo laga qaaday in la geeyey maxaan ku yiraahdaa boosaaso la geeyey ay dawladda maxaan ku yiraahdaa Puntland ay la kulmeen dadka laga tirada badan ee meesha joogana maxay dadkooda u keenay ma dadka sharcigana waafaqsan ay dadkan laga tirada badan yahay qofka laga tirada badan yahay waliga hadaad aragto qof xaq darro raadinaya waa qof awood leh qofka laga tira badan yahay wuxuu dhowrayaa sharci oo ku badbaado oo isku ilaaliyo sidaas aawadeed wax sharci darro haday inay ka qayb qaataan uma ogolaanayso waxaa jirta saaxiibkeen Jeelani wuxuu cadeeyay in Puntland dad ay ka yimaadeen oo ay yimaadeen Jubbaland yimaadeen si ay u taageeraan qolada Muqdisho joogta ee ka hadlaysa maamulka laga sameeyo Jubbaland in ay meesha ka dhax arkeen in meesha qabiil ay sheekadu ku socoto taasna qaylada ay keentay arinta ma waxa leedahay xukuma jiraan okay horta Jubbaland way tagi kartaa Kismaayo cid ka celin karta ma laha xamar Puntland Kismaayo way tagi kartaa waa gobol Soomaaliyeed waana dad Soomaaliyeed cidii wax dhisanaysa in u tagano gacan ay ku siiyaan xaq bay ku leeyihiin wixii ay marka ay aqoon u leeyihiin oo way arag u leeyihiin in u sii sheegaan xaq bay ku leeyihiin marka haddaan u arka taas qabiil example madaxweynaha wuxuu yiraahday meesha asagii dhana oo madaxweynaha wuxuu yiraahday laba qabiil oo wada dhalatay ayaa wax dhisan haysa asaga markuu waxaan dhihi karaa qabyaalad buu u yeelay asaga ma dhihi karaa ma dhihin wuxuu ku yiraahday England laba qabiil uu yiraahday laba qabiil ayaa wax dhisanaysa hadalkan ka baxo laba qabiil ayaa wax dhisanaysa yiraahday asaga waxaan dhihi karaa marka qabiil buu u yeelay okay aan ka gudbo ninkan wuxuu leeyahay saaxiibkay ah dastuurka kuma qoran war dastuurka qodobkaas aan ku sheegay 49 qodobka lixaad ayaa sheegaya laba gobol iyo wixii ka badan xuduudadana ay xuduudadii siyaad bar u ogaay okay ani ma ku qoray marka waxa la leeyahay waxa dhibaato ah tan hadda waraaq يعني أنا ورقت أنا وأركينا هدو قف فينا ورق ما تجلسين كذي أنا تستورك ويكون قرنتاي وأنا الشرعي دبعت هذا واحد كيني waxaan la soconnaa ninka hadda loo doortay madaxweynaha Jubbaland inkastoo kuwa kale fara badan ay jiraan ninka hadda la doortay la cadeeyay in asaga madaxweynaha meesha la doortay iyo ku-xigeenka ninka uu ah labada waxay ka soo jeedaan hal beel beelihii kala deganaa gobolka okay waa war fiican horta aniga ma dooran doorasho hadii loo yimaadana waxa weeyaan nin kasta uu ku guuleysan kara waana nasiib hadda ka hor waxaan arkay aniga 63 shan nin oo Allah u raxmada Allah rahman rahimin oo uu ku jira ninka la yiraahdo Xuseen Kulmi Afrax oo uu ku jira General Daawud shantooda isku beel ah oo hal wafti Soomaali ugu qayb galaysa arkay markaas looma arkeen inay qabiil yihiin haddadkii oo dhan way dhamaadeen Allah rahman rahimin وما waxaan ka been sheegay shantooda wafti ay ugu qayb galayeen hatta qabiil guud ma hal qabiil hoose isku ahayn maxayna masalayeen Soomaaliya masalayeen dadka hadda madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa uma arko aan qabiil inahiin waxaan u arkaa dad Jubbaland ah loona doortay barina ka tagay kuwa loo dooranay because nik soo sharxay cid kasta soo sharxi kartay aniga uma diidin Jeelan waxa jirta gobolka Banaadir waxa degaa qabayl fara badan oo Soomaali oo dhan wada degaa haddana kama dhax aragno dad ma taqaana ka yimid ama waqooyi galbeed ka yimid ama Puntland ka yimid ama
dhinaca Kismaayo xagga ay ka yimid oo maamulkii gobolkii Banaadir kamid ah wayna degan yihiin magaaladii kamana qayliyaan oo ma yiraahdaan anaga wana sad burs bana lagu sameeyay ma yiraahdaan maxaa keenay Kismaayo inay yiraahdaan sad burs lagu sameeyay magaalada Muqdisho waxaa jooga dawladda federaalka ah degan dawladda federaalka Soomaaliya oo ka dhaxaysa gobolka Banaadir baa ka hadlaya gobolka Banaadir qof ki yimaada maxaan ku raraa magaalada degan inuu xil kan qabto oo rabo cidna u diidimaysa mid kale mid aan ku sheegay haddii dad la dulmay oo dawladda federaalka ah ay dad dulantay oo ayba magaalay gobol dulantay waxay dulantay gobolka Banaadir dastuurkeenu ku orantahay inay dulantay daliil aan ku dadka ka dhaxaysa dulnamiya dulum cad ayaa gobolka maya dulum cad ayaa lagu sameeyay gobolka oo ah waxa ku qoran mesela fiiri maqaamka magaalada Muqdisho waa dastuurka federaalka maqaamka magaalada federaalka Soomaaliya waxa go'aan looga gaari doonaha la yiri dib u eegida dastuurka waxaana sharci gaar ah ka soo saari doona labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ma taqa labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya waxay labada aqal ee baarlamaanka federaalka waa baarlamaanka hadda jira iyo odayaasha baarlamaanka laga soo doono dawlad goboleedyadu ay ka imaan doonaan magaalada Muqdisho maqaamkeedii waxaa lagu xiray Soomaaliyadaas aad u jeedo oo ay ka mid tahay Soomaaliland oo dawladaan hayle dad ka imaanaya laga soo doortay xamar yimaada Puntland dad ka yimaada Jubbaland dad ka yimaada kuwan haddaba shabaabku oo haysto tacbaanka dad ka yimaada magaalada Muqdisho maqaamkeeda lagu xiray sidaas haddii cadaalad darraba la sameeyay Muqdisho lagu sameeyay meesha looga sameeyo maad aragtaan marka gobernatoraha gobolka la sameeyay iyo ku-xigeenkiisa la sameeyay gudoomiyaasha degmooyinka Muqdisho 15 gobol noqday degmo la sameeyay macnaha dhamaan waxa madax ka ah dadkii deegaanka u dhashay sax su'aashan ku weydiiyay marka waxay tahay way ku tiri badan yihiin sababta dadka deegaanka u dhashay uga noqdeen meeshan gudoomiye degmayaal maxaa lagu diidayaa in jubbooyinka dadka shan way su'aasha hadda lama diidana jubbooyinka dadka ugu tirada badnaa waxaad ugu tiri dad baa cadaadiyad ugu tiri cadaadis kuma jiraan miyaa kuwa Muqdisho jooga Muqdisho kuwa jooga magaalada Muqdisho dagaal sokoya ka dhacay wad ogtahay xaafadaha iyo degmooyinka la kala haysto waxa waaye sidii loo kala qabsaday waagi iyo si la mid ay u taala waxa la rabo in dib loo saxo oo shacabka Soomaaliyeed ay dib u soo noqdaan oo caasimada maqaam gaar ah loogu sameeyo oo shuruudaha loogu xirayaa waxay tahay qof kasta ee Soomaaliya ee degan ma soo degi doonee dib u yimaada inuu ka helo xuquuqdiisa sidaas aawadeed weli waxa qalad oo ka jira oo aan dhameystirnayn dastuurka sida magaalada Muqdisho iyo gobolladaba oo dhameystirnayn magaalada Muqdisho ma dhameystirna sidaas aawadeed Soomaalidu waxay tiraa wax qeyr lagu masalan ma raaliga aada ma sugta marqaati mehermar ninkan marqaati ma galo raaliga aada Suuriya hadaan gafaya waxaan rabaa anigu soo jeedinayaa marka in la sugo baarlamaanka federaalka Soomaaliya sharciga Muqdisho uu sameeyo sharciga gobolada uu sameeyo xuduudiisa isu raacayeen minority iyo majority sida loo kala leeyahay markaas xaq u imaanaya laakiin inta aan sharci lagu kala leexanayo oo san jirin qoftii ka xog badantay madaxa agta ka saaray balan marka laga hadlayo inta badan waxa la soo hadal qaadaa magaalada Kismaayo magaaladan Kismaayo oo adiga aad ka timid maamulkeeda yaa yeelanay marka waxa yeelanaysa cidda deegaan u magaalada cid kasta waxa noqotay cidda degan ayaa yeelanaysa maamulkeeda laga sugi maayo dawladda in macnaha ay dawladda maadaama dawladda ay tahay dalka dhan xukumaysay dawladda waxay xaq u leedahay inay dhax fadhido wixii khalad ah oo marka meesha laga sameeyay ay tiraahdo waxaan waa khalad bedelaysan yeel waana loo fidiyay gobasha diyaar baan loo leeyahay cidiidana ma laha cidlana ma lahan maamulka annaga ayaan dawladda noo imaan kartaa ilaa had jeerta cid ahda ma jirto gogashi waa fidsan tahay imaada la yiraahdo bal eeg dawladda khaladaadka ay sameynaysaa ku sheegi waxa la yiraahdaa imaada gogashi waa fidsan tahay loo imaado haddaan khalad sameeyna khaladka ay naga celiya dawladda waxay tiraahday gogashiina laabo xamaran gogol aan dhigeenay xamar soo caasimada dalka ma aha gogashi xamar idin dhigeen tiinana waxaad ka dhigtaan gogol dib u heshiisii yaa ku dagaalamahay laba nin oo kursi wada fadhida oo maamul aan wada dhisanayna leh oo qada wada cunayso bilis wada cunayso dagaalamaya kuwa hadda isku haysta shanta lixda madaxweyne hadda isku haysta ku dagaalamaya walaalkay kuwa nin bilis wada cunahay oo meel wada fadhiya oo hal sariir wada jiifa miyaa loo sameeyay dib u heshiisiin Kismaayo laga sameeyay Muqdisho Soomaaliya dhan wada degan ma laga sameeyay waa su'aal
حسن الشيخ يا أبدا Soomaaliya talada dalkan isaga ka go'da maxaad isaga talada uga soo gali adihin maadaama ay madaxweynaha Soomaaliya gogol baan u dhignay ima waan niri haddaan khaldan lahayn na qabaan niri xaq baa ulay shacab baan ani shacabkiisa uu xukumayna shacabkiisa uu xukumayna madaxweynaha waxa xukuma shacabkiisa rabitaanka shacabkiisa inuu raaco madaxweynaha waa ku qasbaya su'aasha ku weydiiyay waxay tahay okay madaxweynaha maadaama uu yahay dalka oo dhan xukumayay hadii uu yiri waxaan yaan la sameeynin sababta iska talada ka go'da ee waxaan la sameeyay aniga idin soo go'aaminayo way loogu diiday way madaxweynaha dadku u yahay kuma qoran tahay dastuurka inuu yiraahdo madaxweynaha dastuurku ma dhaqmi kartiin ana jeebkii warqad ka soo bixinay oo idinku xukuma inuu yiraahdo madaxweynaha dastuurka kama leexan dastuurku ka leexan xaqo ka leexan wuu ka leexan si toos uga leexan kuma jirto dastuurka madaxweynaha wuxuu yiraahdo 6 bilood oo ku meel gaar ah ayaa magacaabaha uu yiraahdo xagee uu qortay dastuurka 6 bilood in la magacaabo gabartooro gobol meel ay u qoran tahay ma jirto horta waa waxaan ku jirin madaxweynena waanu leenahay warkiisana waa la diidayaa wax socday ma aha ma diiday madaxweynaha muuta baagtiya fiiriya madaxweynaha wuxuu tagay baydhabo waa wada ogna odayaashii baydhabo la shiray shakhsi ula shiray wuu ka baxay beledweyne uu tagay odayaasheedii la shiray wuu soo dejiyey wuu baxay Puntland uu tagay waa ku mahadsan meesha hadda dalka uu ka taagan yahay waa Kismaayo waa madaxweynihii asaga xukum waa ilmihiisi wuxuu arkay in meesha waxba ka bixilaayiin muutaga asaga muxuu ugu faanaya muxuu diidiyaa su'aal meelna waa ku amaanaya madaxweynaha meelna inuu taga weeyaan example madaxweynuhu wuxuu tagay beledweyne maamul ay lahaayeen dawlad goboleed samaysanayna waa laga diiday maamul qasab ah oo dawladdu ay u magacaawday ayaa loo magacaabay kii joogay diyaarada lagu soo qaaday xamar la keenay baydhabo sidaasoo kale kii joogay laga qaaday maamulku meel gaar ah loo magacaabay hadafka loogu magacaabayo waxay tahay in laga warsugo laba shay koow inta dastuurkan baarlamaanku uu guddi uga saarayo ee guddigu uu qeexayo xuduudaha gobolada iyo nidaamkaas uu qeexayo labo inta laga xoreynayo gobolada oo dhan oo laga saarayo maxaan ku nimanka dawladda ka soo horjeeda arrimahaas ayadoo la sugaayo ayuu madaxweynaha iyo dawladduba waxay go'aan ku gaareen in guddi ku meel gaara maamulku meel gaara meel walba loo magacaabo sababta marka Puntland meesha la yiraahdo Jubbaland ay uga ordaysa maamulka ku meel gaarka oo ninkan jabhadda raasgaambooni wata oo meesha maxaan ku iraa oo afarta qof oo ugu qunfulanayo qaar ka kalena oo uga saarayo jabhad muusan orana wuxuu yiri waa ciidan dawladdu leedahayna waa joogiya jabhadda raasgaamboonina way joogtaa labaduba way joogaan waxa jirta waxaan rabaa marka anigu waxa aan ku taaganahay waxay tahay haddii Soomaalinimo la rabo cadaalad darro haddii la sameeyo muqdisho laga sameeyo waa ku sabarnay waa ku aamusannaa mustaqbalka hargeysa inay dad ka yimaada ay xamar yimaadeen oo go'aankeeda ay gaaraan ayaan ku fadhinaa war waxaan lala ordaayo sharci darrada hal la joojiyo qaanuunka la dhinac maraya hal la joojiyo diinta islaamka lagu dhinac ordaa hal la joojiyo hal laga warsugo dawladda federaalka ah hal laga warsugo baarlamaanka la soo doortay oo ayagu ay soo doorteen oo ay la yimaadeen ha joojiyeen boobka haday boob wadan Soomaaliya lixdan madaxweyne maanta joogta problemka ka yimaada iyo dagaalka meeshaas ka dhaca mas'uuliyadeeda waxa qaadaya dadka maxaan ku meeshaas fidnada ka wada xamar ay cadaalad darro lagu soo cadaalad darro jirto cadaalad darro lagu ma sameeyna xamar waa xaq in loo sameeyo nidaam gooni ah because xamar waa caasimadii waddanka sharci gooni ah oo nagu wada dhaqa dhamaantii aan ku wada joogno aan u sameysano hadii la yiraahdo waa saxantahay aniga mali caasimadii maahan laakiin hal ma ogolaanay caasimadina way anaana iska leh wasiir adoo ka in magan iyo ahaw taas wax macquul ah waa in loo sameeyo caasimad sharci gooni oo Soomaali wada leedahay Oslo Norway wada leh okay taa aan ka gudba waxa la yiri jabhadda Raaskeyboni war ilaahay aan kugu dhaariyay Keybon hortu waa magaalo Raaskeybon ilaa Raas Caseer waa labada cirfa Soomaali laakiin jabhadii magaalada Kismaayo soo gashay magaceeda jabhadda hadii la yiraahdo ciidanka beledweyne joog oo Itoobiya ay soo hubayso soo galay beledweyne jabhad buu ahaa ciidanka raxweynta oo baydhabo jooga jabhad buu ahaa qolada la yiraahdo sunna wal jamaa oo gobolada dhexe joogta waa jabhad qolada la yiraahdo xamar meel kale iska dhaaf ciidamada joogta 80% waa hal qabi waa jabhad maalin kasta waa artagablaha kufsanaya maxaa Raaskeyboni ka soo uri kuwaas ay limid yihiin deegaan way Raaskeyboni kuwaas magaalooyinka joog cid la malaha jabhad weey tan waxa la nin kasta waa jabhad war deegaankaas qabtay wayna ku fiican waana ku amaanayna anaga raali aan ku ahan Raaskeyboni kuwaas deegaanka ay limid yihiin waa Soomaali waa deegaan
dhibaato dalkuma hayaan magaalada ay qabteen cadow ay ka saareen midda kale 4 sano ayay soo dagaalamayeen maxaa loo dhihi waa jabhadaatiin ha dagaalamiina 4 sano ay soo dagaalamayeen Axmed Madoobe waaga jabhadu ay hayso laakiin ha waxaa loogu tagay dhobley dowladda Sheekh Shariif wasiir u tirtay bartaas loogu tagay dhaqaale loo geen jiray markay Kismaayo qabteen al-shabaab ka xoreeyay ma jabhad noqday kuwa kale gobolada kala joogan jabhad ma hadda maxaa loo leeyahay jabhad way marka ayaga la necab yahay way saasa waa qabiil kaliya waa hal qabiil kuwa beledweyne joogyahay raxweynta kuwa joogyahay baydhabo joog xamar kuwa jooga maalin kasta dadka kufsadayay 188 hal qabiil weyn yahay 18 degmo 16 degmo oo Muqdisho 14 degmo iyo labada kale ku xigeenadooda waa hal jif yahay ma yahay qabiil lahayn maxaa ka soo orkisay mar gobolada Soomaaliya kamid tahay dadkii deegaankeeda qabsaday dadkii deegaanka waxayna diyaar u yihiin maamul in loo dhiso maamulkan ayaga dhisnay dawladdan ha timaad khaladka ay leeyihiin ha sheegto maamul loo dhiyahana laga dhisay waana laga dhisay su'aash kale ku sheegay hadayna waa iraahdo aniga madaxweynaha la sheegay ina darmaan oo kale waa in la buubuunim ah waxa buubuunihayna joornaalada iyo shakhsiyaad oo kale barhiila lin doortmara gabadha uu qabo barhiila calankii Jubbaland ay xirantay waxa joogtaa hadda meesha jaamacadda waxay u aalaasaasay Axmed Madoobe maantadan hadda aan kula hadlayo 12 teknika oo 280 ciidan ay saaran tahay oo Kismaayo tagto barhiila arugta ma shakhsiya marka ana la hadlay dhibaatada intaas ka ciidankaas ka yimaada yaa mas'uulkeeda qaran ninka la yiraahdo ma madaxweyne hore ku qaldamay ninka la yiraahdo Xasan Sheekh Maxamuud oo baar daagle dagaal sokaya ka dhacay ayaa mas'uul ka ah maalin kasta hadalkiisu wali ma aan arag eeg Cabdiqaasim madaxweyne soo noqday Abdullahi Yusuf soo noqday Sheekh Shariif Sheekh Axmed soo noqday ninkii dhintay ninkii noolba khayr Allah siiyo حسن شيخ محمود هذا حلك ولي ما أنا أرق مدحوينه يراه دقار سكاي مش كدعاء أسجع إعلامي دقار سكاي كسماي وحي كدعانا حسن شيخ محمود أي مسؤول كأ عتكل اللي ويدان الملح وحاجته مدحوينها الصومالية خطبتي قدام بيسي وأخري يعرفها قصة بسلاد وحجري كسمايو أما قبل جبلان وحي أن فيلاي يا قصة سعودي يجري marka waxa uu filayo oo ku soo socdo macnaheeda ma waxay tahay dagaal sokaya meesha ka warmaya midda kale su'aal kale jirta nimankan madaxweynimo sheegtay oo sida barhiiraale oo kale ma dhici kartaa in laga soo tahakuleynaya dhinaca dawladda Soomaaliya si qas ay ugu abuuraan meesha horta su'aasha koobaad ee madaxweynuhu inuu wari meeshaas waxa ka filayna ka soo socdo macnuhu waxay tahay meel haddii aad u jeedo in ay ku socoto sharci darro waxaday sharci darro ay ku socdaan oo aan nidaamka iyo sharciga u yaalo meeshaas aan la raacin wadanka u yaalo aan la raacin waxa meeshaas ka amaanaya kala boob in kanu ila anaale sidaas aawadeed waxa madaxweynuhu ka hadlay waxay ahayd meeshan sharci darro ka socoto sharci darraduna waxay dhalee dhibaato ayay dhalee dhibaatadii ay dhaleysana waa midda maanta ka taagan ee 10 nin madaxweynaha waxa ku soo reebay barhiiraale madaxweynuhu mar walba horta qofku waxayna dhahin in la yiraahdo hadda koor waxa la yiraahdo waxa lagu eedeeyay inta kale adinku beledweynuhu wax soo dhista inta kalena anaga u dhisayna صح ما هم بين هذا ما هو شيء إنه خلنا تجيبوا شيء مدحوينه بدأ بقعدين ما أنت لفت هذا محور ما أنت ما إنه محاكرة ماشى أضغط ربع ومغض قد بدي سوى حاكم هذا دولة ضد بيقدرتي وحين أقدرتي عيدا مدى الدولة ماشى الجوجة إن نكقيب قادا لبعتها دي ماشاس أي كذا عضو أو أي بنانك كاميرا سداس وديت مدحوينه وحو عديي أو كله أنت محاكرة مسؤول ماشاس شاغانيس أما مدحوينه شاغانيس مد كمدة أو دولة فدرال كوي تاجر سنتا إن يسنجر نقود بدي سوق دم بيسي سديد طبعا كمية أو حدر وحين وشكت إن تكنيك فربضنا وسعة برهيرة لي تكتم قالك اسمعيو سيدا أنكو أرنا إنترنت هذا وبسيدا أنكو أرنا ما واحد وجوجنا يو كل دقالة مايا ده واحد كل دقالة مايا واحد شرع درada ماشي سقوطه وسوق أو كمديها كل دقالة مايا دقان كواي شرع درنا من دقان كواي شرع درنا ماشي جوجو كل دقالة دي لسوء أخرية إن برهيرة اللي أنت صهوب وما أنت مقالك اسماعيل قلي برهيرة اللي عقو أنت صهوب كيف سد ما هيستو وقبيل حجيب العتكة وقبيل
waxa dhan oo dawladdu ka digaysana waxay in qabiil meeshaas ay dib ugu naqato oo qabiilkiisa soo hubeeyay oo hubka dadkiisa u yeertay yaa soo hubeeyay dadkiisa u yeertay qabiilkiisa u yeertay qabiilkiisa sharci darray meesha ku joogaan oo maxaa ku raacay ciidanku sharci darro ku imaanaya ku jooga sharci darray ku dagaalamayaan ku joogaan qabiilkiisa bare hiiraale qabiilkiisa muwan wax laga siin maamulka Jubbaland horta maanta anta horta waxa weeye hadal iska dhahayn horta wax matreys maanta aan taagan Kismaayo waa la hadlaa aniga 12 technical sigisa حاجة 50 واحد ودات ما إيمان حاجة 50 أوكي تنكله برهير عليه تلكيسة كان مدحوينك وحجان كان نكا أو فرتاج ليرا برهير على صدق حكلا ترسلا وتلكيس واحد جوج السودان كيس وقاس فارح ويلكو أذرك وها أو مركو ما عنده وقاس فارح عليه الرحمن الرحمن أوردنتي ويلكي اللي بدلوا أذرك وها أيا جوج تل أودي ما برهير على مرحن هدي عائلة كورلي هذانا أنا بكمل تلكيس oo tol kale uu raadinay ma lahan wax ciidan oo keenana ma lahan waa wax la booboonihay oo joornaalada ay qorihayaan example wax in kamid ah ku ogata Netherlands nin jooga wuxuu yiraahdaa madaxweynaha ay meesha waa la soo qoray nin Ingiriiska jooga wuxuu yiraahdaa madaxweynaha ay waa la soo qoray ama waxa leeyahay dadka madaxweynaha sheeganaya Kismaayo ma jooga barra kale ka joog baare barra ka joog waxa kale wax jira ma ana ku wada xaqiiqa wawr ninkaani ciidan hal askari oo barra leeyahay ma jiro haddana wuxuu leeyahay hadduu dagaal ka dhaco dawladdu ku eedeynaya haddii aysan barra ciidan u joogin cid oo dagaalka uga baqay dawladdu u eedeynayo way dawlad ayda lafteeda way dawladdu ayadaaba kuleba kamid maahin adu miyaad masabadanaysa af joogay dibad loo ma adeega leeyri madaxweynaha isaga ma aqoonsan midaan aqoonsanaa male kamid naqamayno konfliktigaas kuma jirno banaankan ka joogna adigu ma qasabaad ku gelinaysaa qof asagu kule kamid maahin asaga ilaamiyay dagaal inuu ka soo socdo gobolada Jubbooyinka qof kasta oo kale okay inay ka soo socotay lagu ogaad waxa lagu ogaaday dadka meesha isugu tagay oo le maamulan dhisayna oo sharciga ku socdo wala diin islaamka qodobkeed diiday diinta islaamka warmaasha kitab amriga ka hor yimideen qodobkana diiday aniga miyaa qodobkana diiday qodobka ku xiga sheeg waan ku sheegay ha qodob diiday war qodobka shaqo looma sameyn dalka gobolada xuduuda looma sameyn waxba lama sameyn anigu hadda baxaya markaas waxaan geelsa kamaliyaan geelsa kamaliyaan qodobka uu sheegay 49 qodobkiisa shanaad way hadaan ka hadlay 49 waxaa buriyay 49 qodobkiisa lixaad buriyay xarafkiisa lixaad oo sheegay markasta inuu ku celcelinna ma waa qodobkaas sheegaysa waa qodob daciif اوكي كان حديث ابي مرك كان حديث waxa uu daciifkan ku sheegaya laba gobol la isoo raacawrey waxa ka badan Soomaaliya 10 gobol asaga qorayt dastuurka qoranta waa waxa la bedelayo dastuurka qoranta waxa in la soo ay tahay oo revision lagu sameeyo horta hadda kuma qoran tahay hadda miyay ku qoranta mas kuma qoran way ku qoran tahay laakiin yaa ka weyn bedel horta la gaar waxa ka weyn qodobka maxaa ku 49 farqada shanaad qodobka 49 ka weyn oo dhahaya xuduudaha iyo sida goboladu isu raacayaan waxa uu saaran oo calaameynaya dawladda waxa baarlamaanka federaalka qodobkaas ka weyn baarlamaanka federaalka hore uga hadalnay labada aayadood hortiisa labada aayadood tan hore iyo tan dambe tee buriso wax aayada dambe ayaa wax buriso oo xadiis ah hadii kulli wax run yihiin xaqiiqa ah qodobkan waxaa buriyay xarafkiisa lixaad buriyay xarafkiisa cigal taa hore uga soo hadalnay Jilani waxa jirta bare hiiraale macnaha Jubbaland waxa lagu qaybsaday beelal lagu qaybsaday sidaan arkayno inkastoo ay beel u badan tahay la feedii si ka qaybsatay bare hiiraale beesha uu ka dhashay miyeen meesha wax ka helin waxa asaga xanaaqo ka keenay ma beeshisa wax la bare hiiraale anigu horta wax xanaaqo ka keenay anigu ma amaana ma hogaamiye kooxda waqtiga ka yahay hogaamiye kooxeed soo noolaadayna waaye fidna soo bilaabatay oo kamid yahay laakiin bare hiiraale waxa uu kamid yahay dadka sharci darrada wax ku doonaa balaliqada raadinaya sida kuwa hadda maamulka sheegto sharci darrada meesha isugu tagay ee maamulan ka sameeyna la sharci darra kuwaas uu kamid yahay wala aktar wala aqal waxa nasiib darra ah 800 qof oo asaga laftiisa hata odayaashiisa ah oo adeeradiisa ah inuu yiraahdo balaliqa ku socdo horta waa nasiib darra oo culimo suldaan nuuc walba leh inuu yiraahdo balaliqa ku socdaan horta waa nasiib darra aniga malihi 800 qof xamar isku timid oo deegaanka Muqdisho ah balaliqa ku socdaan xashaa kulillah horta afkayga ma aha taas horta waa afkiisa waxa la yiraahdaa hadal gobolda ninkiisu ku egi tan kale bare hiiraale maxamed abi maxaa ka maqan adeerkiisa fadhi meesha eedadiisa fadhiisa abi la dhalatay hooyadiisa fadhiisa maxaa ka maqan maxamed amiin
bariiraan kaasoo kale weyn inay tagaan kaasoo kale weyn waxaad sheegaysaa inay maas ugu tagaan waxba dhisayna yiraahin oo sharciga dhinac maraanaba qaldanba انت شرعي horta sharci ma kitaab quraan horta sharciga ma dastuur baan ku hadlaynaa ma kitaab quraan ku hadlaynaa waa su'aal ayadu quraanka xataa been ayad quraan ah oo horta Soomaali ay ku dhaqmi haysa malahan waxay ku dhaqmaysaa waa dastuur ay kala dambaysa anaga kitaabka jaamaca kuma kala bixi hayno waxa wadanka u yaala oo wadanka uu kala hagaay waa dastuur dastuurkana qodobkaas ayaa taagan hadda kadib la bedela ma sugnaa marka Puntland soo baabi'ay galmudug soo baabi'ay waa sugeynaa marka Puntland iyo galmudug waxay ku dhisay federal ayaga marka federaalka intuu kaagaga ayaga soo burburi markaas Kismaayo waa la joojinaa majiraysa kuwan waa jiraan wadanka dhinacna federaalkii dhinacna kama ahaanay taas waxa warqaan jeeb kala soo baxay waa bila dastuur uutan loof way taas uutan loof nooca la qaata ma aha su'aal baan ku weydiinayaa ku aadan maamulka Jubbaland okay waxaan la soconaa magaalada Kismaayo inay deganayeen dad la yiraahdo Baajuun oo ah dadkii Kismaayo waqti hor lagu yimid nacam maamulkan maanta laga sameeyay Jubbaland xubin intee leeg ku leeyihiin haddii maamulkan 60 iyo 5 xubnood weeyaan baarlamaanka 10 wasiir madaxweyne ku xigeen haddii laga waayo Baajuun nimanka la yiraahdo jareer يعني سومالي دتك ugu hadii la yiraahdo waa adar soo yiraahdo Soomaalida ay ma hubastan la yiraahdo hadii laga waayo waa naxli wax meesha yaal hadii laga waayo horta degmo ay gooni u leeyihiin malahan laakiin degmooyinka wadanka ay degaan oo jubbooyinka min luuq ilaa ay wabiga hadii laga waayo bal hal sugiya waxaan la gaarin laga hor dhaca hadii nimankaas laga waayo waxa la sheegaya been laakiin waxaan ku hubaa wasiirada ugu badan iyo xildhibaanada ugu badan in ayaga noqon doonaan haddana shirka ay ku jiraan waan ka arkay tiibiyada maadaama meesha aad ka dhawaajisay in xaq darro lagu dhisayo oo wax ay tahay wax xaq darro ku socda in dadka laga tirey badan yahay ay berito xawayaan معقولة ما horta in wax la helo iyo in wax la waayo waxa ka horeysa waxaanu sharciga ma waafaqsan federaalka shariicada islaamka ma waafaqsan wax adiga laftigaagu hadaad hesho shariicada islaamka ma diidayso in maamul la sameeyo oo amriga la dhinac mar maamul in la sameeyo oo amriga la dhinac mar ma diidayso laakiin shariicada islaamka waxay ku amree inaad oo amriga aad raacdo hadaadan raacin oo amriga aadan raacin macnaheedu waxay noqonay khilaafaad wada waxa kale oo meesha la khilaafsay federaalka la khilaafsay marka inaad wax hesho ama aad weysado ama minority ama majority hadaad xaq darro ku helayso ama aad maxaan ku xaq darro ku weynayso wax ma macna ma sameynayso sidaas aawadeed anu waxaan qabaa in wax la helo ama wax la waayo wax macna oo ay sameynayso male sababtoo waxa meesha ka socdo oo wax lagu raadinayo sharciga federaalka ee dawladda federaalka waxaan leedahay wanka horta hal booli aan riixay ma dhasho sidaas way okay fiiri horta saaxiibkay wuxuu horta kala bixi mar wuxuu leeyahay diinta ayay ma waafaqsanaba war Soomaaliya ma kitaab Quraan baa lagu xukumay hadda dastuur baa lagu xukumay way waafaqsan okay ma halka waxa ku qoran dastuurka federaalka waxa ku qoran inuu sab ay u tahay shariicada islaamka oo loola naqanayo hal eray oo shariicada islaamka ka soo jeeda dastuurka lagu qori karo laakiin maamul in la sameeyo shariicada islaamka ka soo jeedo horta aan hortiisu shariicada islaamka waxay sheegaysaa ninkii waxaad gacanta in laga jaro dastuurka wadanka gacmo ka jaray hadda ninkii waxaad xamar ugu qabto ama meel kasta lagu qabto maya shariicada islaamka horta yaa lagu rafani لكن مامور مامور شريعة الإسلام يالله رفني تنكله شريعة الإسلام كوديري سمامور ضدك إنه فوضى كنا ولا وإصلاحه مية شريعة الإسلام قريسة مية اقل مية ما تديريش شريعة الإسلام اوكي ما حاول لكن فوضى iyo problemka waa waxa hadda laga doorayo oo hadda bilowday dawladda federaalku waxay tiri nidaam la idin sameeynaya dadku meel maxaan ku raad guddi ku meel gaar ah la idin magacaabaya gobolada la xureynaya degmooyinka la xureynaya goboladu say isu raacayaan design lagu sameeynaya hal la sugo maxaa adiga ku eriyaya oon xaq darro ahayn oo raadinaysa taas hore uga hadalnay barnaamijka noo gabagabo su'aasha aan ku weydiinaya waxay tahay Puntland wasiir ka tirsan baa wuxuu soo jeediyay in jihaad la iclaamiyo arinta jihaadka ma aniga horta ma ana maqal waa maqlay saxibka ku soo jeedinay ma ana maqal nin Puntland ka mid ah ayaa yiraahday horta gabigeed eriga la yiraahdo jihaad cilaamiskiisa waa wax khaldan batatan qasi waa khaldami kara erig khaldan weeyaan laakiin ma ba aaminsaniba erig ani shalay maqlay erigaas eeg fiiriya banaanka ka maqlay xalay kulli internetkooda aan wada galay xalay hal internet oo soo qor hal journal oo wali shalay waxa la yiraahdaa madaxweyne Cabdiraxmaan Sheekh Maxamuud ayaa dhahay liigu dhahay shalay ayaa liigu yiraahday internetkooda dhan aan wada gal kulli journal aan fiiriya xalay waana waayay hadda waxaan rabaa journalka inuu ii sheego xagee ka khasay waxaan
كل نيو ويب سايت كذا ما حسوسته ويب سايت كوجر تلا ما أنا وحنا نسكلها ما اوكي ما ويب سايت كوجر تا اسوي اورال ما هيسا اسوي اورال ما ويب سايت سوقري إنه سيداس اوكي ما عدينا ما عدينا على أي حال ها واحد عدينا أنا أسف كيس كم كوبين لكن إنه وزير أو تايتل وزارة ده هيستا إنه إعلامي إنه يبنان تاي إنه وجه هذا الدولة الفدرال جورنال مدحوينها وحو يراهد أرنتا for example مركان كسو قاضي بلدوينه بين باليغ شيغيره عدكي waa duuban yahay dib ha loo baaro wasiir markuu hadlay shir jiraa'id oo qabana journalista joog wasiir iska ma hadlay waxaan rabaa idaacadii soo tabasay Puntland inay tire dawladda ha lagu jahaado idaacad Puntland ma ahan wasiirka waa Puntland marka waxaan jirin oo laga sameeyay gabagabadii barnaamijka soo gaarnay ugu dambeyn maxaa tala ah u soo jeedinaysaa dadku daawanaya aniga waxaan u soo jeedinayaa horta Jubbaland qabiil ma dhisan haayo ummadii deegaanka ayaa dhisan haysa dawlad aniga fikrad ahaan waxaan qabaa dastuur xaq ah oo qodobka 49 firqadiisa tan shanaad waxa oontay tan lixaad ayay ku dhisay dadkii deegaanka ayana weeyaan dadka la leeyahay 6 madaxweyne waay shanba waxa joogan banaanka ninka jooga gudahana waa ina darmaano kale wax la booboonay ma ahane dadka yaan fidna lagu abuurin ummadaas amaanka la sii hadii la yiraahdo meeshas maxaa kuwa war Soomaaliya 18 gobolnayd hal sharciyaan xukum Puntland iyo galmudug waa jirayaan maamulkana lama dhisay waa wax hadda amaq lahaay way maasta ugu dambeyn jileen waxa tala ah soo jeedinaysaa dadweynaha daawanaya waxaan soo jeedinayaa marka hore dhamaanteen in aan Ilaahay ka cabsano wixii xaq darraan aan iska ilaalino xaqana aan taageerno dadka reer Jubbaland waxaan soo jeedinayaa gaar ahaan in dawladda ay leeyihiin baarlamaan ay leeyihiin ay soo doorteen oo federaal ah oo xuquuqdooda duudsiinayn inay ka war sugaan gobollada inta dhiman ee maxaan ku raab shabaab ay haystaan ay sugaan inta ay ka banaanaanayso ay sugaan inta desaynka gobolladu say isu raacayaan ay dawladdu u sameynayso calaay xaladalkay waxaan ku soo gabagabeynayaa inay dawladooda ay ka war sugaan dadka reer Jubbaland wixii dawladoodu ay sameeysta ay tiraaho ayaga mas'uulka inay wax sameystaan iyaga ayaa mas'uulka inay wax sameystaan marka waxaan u soo jeedinayaa in ay ka war sugaan dawladooda ayna ku kalsoonaadaan ayaga soo doortay aad mastiin daawadayaal inta waxa inoogu dhamaaday barnaamijkeennii Soomaalida maanta oo idinkaga imanayay maqal araga Soomaalisad xaruntiisa magaalada Oslo barnaamijkan waxaanu ku qabanay waa bari restaurant ee ku taala magaalada Oslo aad baynu ugu mahadsan tahay tan iyo intaynu barnaamijka mid lamid ku kulmi doono waa anigoo ah Maxamed Cali Axmed iyo saaxiibkay cigaal oo idinkaga tagaynaa assalamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh